waa xoogiisa oo ii sheegtay yaa ula gaaraa kalxadaaji asoo gaaban lehba kuu kaduudana feer kuu dhiidhiibayo hal midaa jirto inaa xanaaqaa dhagax ku dhuftay garabka wax kalena kuma dhisanin intoo ii geedka haa badanbo garabka aa dhufta asaa nin cadiin ahee gacanta meesha gaduudee ka noqotay dhibkoo ii geystay inteen madaxa juuca ii taal madaxuu iga feeri feeraha uu xanuunaya uu iga feeri xaasid waaye qabiilkoo kasoo jeedo eelo waaye naayaha sisay u dilaan waa xaasidiin adoo og maxaa marka hore farqa ugu gasho walaalay oo xaasid catoosh maaba heerkaas oo gaaray buu haa xaasid waaye intoo madaxa iga qabtay oo ii ceejiyo feer igu daldalay madaxa ii feeraha iga feeri waa muuqaal argagax leh xaaskii Catoosh Yare oo ooynayso soona gashay baraha bulshada waxay sheegaysaa in ninkeedii uu garaacay uu jir dilay waa Catoosh Yare arooskoodii waxaa laga joogaa wax ka yar bil haddaba farxadii iyo alalaaskii waxay isku bedeshay in gabadha Soomaaliyeed ee maslaxu caawa ay tahay qof la garaacay kilida iyo feeraha ayuu ka tumay gabadhan way diban tahay runtii xaalad halis ah ayayna ku sugan tahay haddaba daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalka gabadhan way afkeeda ka sheegayso wax walbo iyada ku dhacay iyo dib walba oo soo gaaray hase yeeshee daawadayaal inta aanan kula wadaagin muuqaalkan leegaray si uu gaaro ummadda Soomaaliyeed ayna u garab istaagaan gabadhan Soomaaliyeed sidii ay garab u siin lahaayeen ninkii dhibkan u geystay oo reerkeedii ay ku aamineen oo waxaanu dhibaatada soo gaarsiiyeen oo loo maxkamadayn lahaa waa Catoosh Yare iyo Xasan Toob iyo dhammaan dadkii gabadhan shirqoolka u maleegay oo in la dilay sababta u ahaa haddaba daawadayaal sidoo kale janaalkeena subscribe dheh gambeelka u furo si aad u hesho muuqaalada degdeg ah ee ku saabsan wax walba oo arrimaha Soomaalida ku saabsan ee social media ka socda uga soo go'day Catoosh Yare hase yeeshee sidii ay gabadhan reerkeedii uga soo go'day iyo sidoo kale sidii ummadii Soomaaliyeed ee dacayadinaya una gafay dhahayna ma aha inaad Catoosh Yare guursatay hadalkoodii dhag iyo jalaq u siin weyday oo ay wiilkan u aamintay runtii ma uusan uga abaal gudin hase yeeshee markii uu guri geystay runtii waxa uu ku sameeyay way gabadhani ka sheekaynaysa haddii aad muuqaalkan daawato bilow ilaa iyo dhammaad ilma ayaad kugu soo istaagi doonto haddii aad qalbi jilicsan tahay bal haddaba aynu isla daawano muuqaalka ay kaga sheekaynayso dhibaatada soo gaartay taasoo ah runtii mid mug weyn aynu isla daawano muuqaalkeeda waa idili haa feerta xanuunos feero iga feer xoogo ii sheegtay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xaasid waaye Catoosh maaba heerkaas oo gaaray buu haa xaasid waaye laakiin inuu ku dilo maxaa keeni karo waa la ismurmi karaa waa la isku qaylin karaa laakiin dil maxaa meesha keeni karo xaasidnimo aabahay oo la hadlay beenow iga sheegaya taleefonu kula hadlay anii dumara waaxinay kuwaa dharbaaxay beena iga sheeginaa intoo madaxa iga qabtay oo ii ceejiyo feer igu daldalay madaxa ii feeraha iga feeri ilmihii hadda wuu kaa soo ridi miya haa wuu iga soo ridi subxaanallah ilaahay ha kuu dhib dhaamo tiktokna asimaa kaa naqsade waa naqsadaa asagaa iga naqsada tiktoka walaa xanuun waaye baranki lagu sameynoo siinay ku dhowin dadka hadda taawi xanuunusan fiir wallaahi bilaahi talaa ragow dumarka waa guursanaysiin waa dilaysiin waa sababta la aroos ilaa 5 sano aan garoob u ah had gabadhan fiiri aroos cusub waaye hadda dhawey aroos soo lacaynaayo ilaa aflaga cadaynayo wax walba lagu sameynaayo ugu safrays ee dhees ninkeyga halagaga 200 ku sii 200 qudaar iyo waxaas ku soo gaday cunugaada caanaha halo lacag aad waad haysataa waxba hay weydin ya waxa weydin karta ma
ها ciwaanka ayadii iyo ay ceshte kasii haysa isku dibinaysa ya asugu go-aan asagana kiisa jeebka dambaas gashtay keediina waxaa waaye aan ku dul soconnas dhahay keediis bala sii xisaabtamayo soo dhawaada asxaabta aan ku ballanay inaan qaybsanno aan ku ballanay aan lacaga siiga soo bixay 300 khasaarad ku soo gashay maanta ay khasaaradaas keentay ilaa ka maanta dood iyo muddac iyo xisaabaa loo joogin iyo nin xisaabtamayo dugsida xali maxaad ku karayso badalka ma badis mise waa yaraysa nin dhahay lalama noolaan karo xataash noocaas isnoqo waxaa ogtihiin ma laha marka waxaa waaye adduunyada waxay ahaanaysaan ma ahaanayso waa isbedele ayada inas wanaagsan yahay umalaynayso cunug maskiin ayadana waxay dhahaysa reerkaada maanta war inta lacag soo gashay reerkooda maanta shay u baahan yahay ay ku soo gateen wax maanta waalid ka farxiyo oo siimaa jirta waa maya naaga annaga jareerta annahay annaga dhaqanka aan leenahaba naag markii la guursanayo waxaa waaye 2 boorsoo dhar iyo dahabkeeda iyo $2,000 mise $1,500 laga geeya miisi waa maya waa cunug soogi ilmaha wuu i dili waa idili haa feerta i xanuunos feero iga feero xoogo ii sheegtay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun oo xaasid catoosh waaye maaba heerkaas oo gaaray bu haa xaasid waaye laakiin inuu ku dilo maxaa keeni kara waa la ismurmi karaa waa la isku qaylin karaa laakiin dil maxaa meesha keeni karo xaasidnimo aabahay oo la hadlay beenow iga sheegaya taleefonuu kula hadlay anii dumara waaxinay kuwaa dharbaaxe beena iga sheeginaa dheh intoo madaxa iga qabtay oo i ceejiyo feer igu daldalay madaxa iyo feera iga feer beedhawo markaas ilmihii hadda wuu kaa soo ridi miya haa wuu iga soo ridi subxaan allah ilaahay ha kuu dhibdhaamo ilaahay ha kuu dhibdhaamo tiktokna asimaa kaa naqsade iga naqsay tiktoka arrin aniga waaweyn waa ninka anaa walaa xanuun waaye